kooxda kubadda cagta Real Madrid ama Liverpool ayaa la filayay la wareegan ciyaaryahan Mbappe waa goorma laacibka kooxda kubadda cagta Manchester United James laga yaabo inuu ku biiro koox kamid ah ku ciyaarta horyaalka Premier League kooxda kubadda cagta Gunners oo la soo wareegtay gool ilaaliye cusub Luis Suarez oo la filayay inuu ku biiro koox ka tirsan horyaalka Spanishka iyo waliba laacibka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid oo saaka ka dhigay garoonka magaalada Turin ee dalka Talyaaniga soo filayay inuu ku biiro kooxda weyn dalkaas ciyaaryahan Cavani oo la filay inuu heshiis la gaaro kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid laacibkii weynaa Ibrahimovic oo 2 gool u dhalay kooxda kubadda cagta AC Milan kooxda kubadda cagta United la filay caawin ciyaarto koobka weyn ee FA Cup-ka iyo waliba kulamo kale oo ka tirsan fadlan dad ku cusubtaa channelkeena subscribe nosar nagiragili laacibka kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain Mbappe ayaa la filay inuu ku biiro cagaaga soo socda amaba xilliga dambe kooxda kubadda cagta Real Madrid ama kooxda kubadda cagta Liverpool oo ka dhisan horyaalka Ingiriiska laacibkan ayaa sheegay inuu rabo inuu iska tago kooxda kubadda cagta PSG hase yeeshee qandaraasku kala joogo kooxda ayaa mooday inuu la sii joogi karo kooxda ilaa 2023 hase ahaatee ama si walba ay noqoto laacibkan ayaa dalbaday in uu xilliga cagaagii dambe la filay inuu ku biiro horyaalka Ingiriiska ama waliba kan Spanishka ee La Liga si walba ay noqoto kooxda kubadda cagta PSG ayaa ilaa iminka qorshe ugu jirin in ciyaaryahankan ay iska gadaan balse rajada ciyaaryahanka ayaa inuu marun iska tago kooxda PSG laacibka adeeyay kooxda kubadda cagta Manchester United James ayaa la filay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Leeds ee iminka ku imaaday horyaalka Premier League James ayaa kooxda United ku qiimeysay ilaa 16 milyan asaatee kooxda Leeds ayaa mooday inay iminka diyaar u yihiin inay siiyaan kooxda kubadda cagta United 12 milyan ciyaaryahan James ayaa mooday inuusan boos joogta ka heli doonin kooxda kubadda cagta United sidoo kale United ayaa filay inay keenaan ciyaaryahan sida ciyaaryahan Jadon Sancho Dembele Sa iyo kale kaasaan moodo in James iska tago kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal ayaa la soo wareegtay gool ilaaliye cusub ee lagu magacaabo Ronaldo kaas ay kooxda kubadda cagta Arsenal ka soo gadatay kooxda kubadda cagta Dijon ee ka dhisan dalka Faransiiska kooxda Dijon ayaa ciyaaryahankani Arsenal ku wareejisay lacag aan ilaa iminka la sheegin balse lagu qiyaasay ilaa 11 milyan tababaraha kooxda kubadda cagta Gunners Arteta ayaa sheegay in gool ilaaliyahan cusub uu ku soo biray kooxda kubadda cagta Arsenal taasna ay tahay farxad weyn si walba ay noqoto Arsenal ayaa iminka laacibkan soo dhaweysay laacibka kooxda kubadda cagta Barcelona mooday inuusan wax boos ama wax fursad u ballaaneyn tababaraha cusub ee kooxdaas Koeman ayaa la filay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee ka dhisan horyaalka Spanishka ciyaaryahankani hore waxa uu doonay kooxda kubadda cagta Juventus balse qaladaad dhexe iyo afgarad la yaab mooday inuu iminka u jeestay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid kooxda Atletico ayaa mooday in ciyaaryahankooda afka hore ugu ciyaaray ee Marocchio la filay inuu ku biiro koox ka dhisan dalka Talyaaniga ciyaaryahan Marocchio ayaa u duulay magaalada Turin si uu ku biiro kooxda kubadda cagta Juventus kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ay ciyaaryahankan si amaah ku siisay kooxda kubadda cagta Juventus balse la filaya mustaqbalka inay gataan kooxda kubadda cagta Juventus Marocchio ayaa hore ugu soo ciyaari jiray kooxda Juventus si amaah xilligii joogay kooxda kubadda cagta Real Madrid haddana fursad kale ay siisay kooxda kubadda cagta Atletico oo ka ciyaara horyaalkaas Serie A dalka Talyaaniga si walba ay noqoto Marocchio ayaa ku faracay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Juventus mar kale isagoo ka garab ciyaari doono laacibka ugu wanaagsan adduunka sida uu yiri Ronaldo laacibka hore kooxda kubadda cagta PSG mooday in ilaa iminka aysan wax ku soo dalbin laacibkan ayaa sidoo kale aan wax agent lahayn balse kooxda kubadda cagta Atletico Madrid markay la soo wareegeen ciyaaryahan Suarez ayaa raban soo kale ciyaaryahankan ay keenaan garoonkooda waxaa sidoo kale tababaraha kooxda Simon Inzaghi labada ciyaaryahan oo hore soo ciyaari jireen xulka qaranka Uruguay tan ay fursad fiican noqon doonto kooxda kubadda cagta Atletico Madrid inay ka faa'iideyso labadan ciyaaryahan oo ka ciyaara afka hore
laacibka weynaa kooxda kubadda cagta Real Madrid Ibrahimovic ayaa kulankii ugu horeeyay ee Serie A Talyaaniga kooxdiisa u dhaliyay goolaal kaas aad moodo in aad u farxan taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee AC Milan. kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa 3 ay jirtay kooxda kubadda cagta Bologna taas aad moodo in iminka ay ku bilaabeen horyaalka Talyaaniga gool. ciyaaryahankan ayaa 39 jir ah balse haddii aad aragtid qaabkiisa iyo sidoo gool u dhaliyay aad moodo inuusan ahayn nin 39 sano jira. Solba ay noqotay Ibrahimovic ayaa ku faraxsan in uu sii joogo kooxda kubadda cagta AC Milan kana ciyaaro horyaalka Serie A dalka Talyaaniga waliba sida uu yiri waan sii joogayaa Yurub ilaa aan ka gaaro 45 sano. dhan kale haddii aan eegno daawadayaal ugu dambeyntii kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la filayaa caawina ciyaarto koobka weyn ee FA Cup-ka. United ayaa caaw la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta Luton. ciyaaryahan Igalo ayaa la filayaa maanta ama caaw inuu safto kulankiisa ugu horeeya ciyaareedka cusub soo kaleeta waxaa fursad heli dhowr ciyaaryahan uu ka mid yahay gool ilaaliyaha kooxda kubadda cagta United Henderson oo horey u ciyaari jiray kooxda kubadda cagta Sheffield Wednesday ama balse caaw wuxuu helayaa fursadiisa ugu horeysa ee ciyaaro kooxda kubadda cagta United. Igalo ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay caaw kulanka ee Luton oo ciyaari doono taasna ay noqon doonto si uu dhaxsan lahaa booskiisa. dhanka ciyaaryahan Fred ayaa soo kale la filay caaw inuu ciyaaro waxaa soo kale caaw la filay inay saftaan ciyaaryahan Lingard oo la filay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Spurs walba noqotay United ayaa caaw diyaar u ah kulanka Luton. dhan kale kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa soo kale caaw ciyaareyso barnaamijkii sported kala socoteen ciyaaraha la testub ciyaaray waa nayntia faladaad ku cusubta channelkana subscribe no soo kale ku fog gambalelka soo adisho video kasta